أزواجا ميانا إذن أبور إذن كون نوعية وجعلنا نومكم سباتا waxaan ka yeelnay hurdadiina go'id aad ka go'aysaan daalka وجعلنا الليل لباسا waxaan ka yeelnay habeenkii astur وجعلنا النهار معاشا waxaan ka yeelnay maalinkii nolol وبنينا فوقكم سبعا شدادا waxaan dhisnay dushiina 7 samo oo adag وجعلنا سراجا وهاجا waxaan abuurnay faynuus oo hurid badan taasoo loola jeedo qoraxda وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا waxaan soo dejinay daruurihii maroojismay xaggooda biyo oo shubmid badan لنخرج به حبا ونباتا si aan ugu soo saarno biyahaas badar iyo geedo وجنات ألفافا iyo beero aseendooyin ah kuwaasoo isu dumay إن يوم الفصل كان ميقاتا kala bixinta maalinkiisa wuxuu ahaaday mid loo waqti qabtay يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا maalin ayuu ahaaday oo la afuufi doono buunka markaasaad imaan doontaan idinkoo koox koox ah وفتحت السماء فكانت أبوابا waxaana la furay maalinkaas samada waxayna ahaatay irido وسيرت الجبال فكانت سرابا waxaana la socodsiiyey maalinkaas buuraha waxayna ahaatay dhalanteed إن جهنم كانت مرصادا jahannam waxay ahaatay maalinkaas tucimal gashan للطاغين مآبا waxay u sugnaatay jahannama kuwa qooqay waxayna u tahay meel ay u noqdaan لابثين فيها أحقابا waxayna ku nagaanayaan jahannamo dhexdeeda waayo dheer لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا mana dhadhaminayaan jahannamo dhexdeeda wax qabow iyo wax la cabo إلا حميما وغساقا ilaa biyo kulul mooye iyo ahlu naarka dhacaankooda جزاء وفاقا waxaana la abaalmariyey abaalmarin ku filan إنهم كانوا لا يرجون حسابا ayagu waxay ahaayeen kuwa aan ka baqin xisaabta وكذبوا بآياتنا كذابا waxayna beeniyeen aayadaheena beenin وكل شيء أحصيناه كتابا shay walba waxaan ku koobnay qoritaan فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا waxaana lagu leeyahay dhadhamiya maanta cadaabka la idin kordhin maayo ilaa cadaab mooye إن للمتقين مفازا kuwa Allah subxaanahu wa ta'ala ka baqay waxa u sugnaaday liibaan حدائق وأعنابا waxa u sugnaaday beero waaweyn iyo cinabyo وكواعب أترابا waxa u sugnaaday xablo naaso kuuskuusan oo haddana isku da'aad ah وكأسا دهاقا waxa u sugnaaday koob khamro ay ka buuxdo لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا mana maqlaayaan jannada dhexdeeda hadal baatil ah iyo isu been sheegid جزاء من ربك عطاء حسابا waxaana la abaalmariyey abaalmarin oo ka ahaatay rabbigaaga subxaanahu wa ta'ala xaggiisa waxaana la siiyey siismo ku filan رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا abaalmarintaas waxay ka ahaatay samooyinka iyo dhulka iyo inta u dhaxayso rabbigooda waana Allah naxariista badan mana hanan kara makhluuqaadka la hadal ay la hadlayaan يوم يقوم الروح والملائكة صفا
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا maalin uu istaagayo jibriil iyo malaa'igta ayagoo safsaf ah mana awoodaan maalinkaas inay la hadlaan allah subxaanahu wa tacaala ilaa qofkii uu idmo mooye allah naxariista badan wuxuuna leeyahay hadal toosan ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا maalinkaas waa maalin dhab ah oo shaki ku jirin ee qofkii doonayo ha u samaysto rabbigiisa subxaanahu wa tacaala xaggiisa meel loo noqdo إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا annagu waxaan idinka digaynaa cadaab dhow cadaabkaas uu ahaan doono maalin uu fiirin doono qofka waxay hormarsatay labadiisa gacmood gaalkan uu dhihi doono shalaytadeedii maxaan u ahaan waaye carro بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku bilaabayaa allah magaciisa kaasoo naxariista guud iyo naxariista gaarka ah والنازعات غرقا waxaan ku dhaaranayaa malaa'igta ku siibta nafafyaasha gaalada maanshoogid والناشطات نشطا waxaan ku dhaaranayaa malaa'igta siriq furta nafafyaasha muslimiinta siriq furid والسابحات سبحا waxaan ku dhaaranayaa malaa'igta dawaalanaysa hawada dawaalasho فالسابقات سبقا waxaan ku dhaaranayaa malaa'igta u hormarta khayrka horumarid فالمدبرات أمرا waxaan ku dhaaranayaa malaa'igta maamusha arrinka يوم ترجف الراجفة ka sheekaynow maxmedow maalin ay gilgilinayso tii gilgilinaysay تتبعها الرادفة ayna raacayso tii fangashneed قلوب يومئذ واجفة qalbiyaal maalinkaas waa mid welwelsan أبصارها خاشعة aragyaalkeedana waa mid dullaysan يقولون أئنا لمردودون في الحافرة waxayna leeyihiin anigu miyaanu nahay kuwa lagu celinayo jidkii hore أإذا كنا عظاما نخرة oo miyaanana celinayaa markaanu noqonay lafo oo bololay قالوا تلك إذا كرة خاسرة waxayna yidhaahdeen marka taas waa celin oo lagu khasaaray فإنما هي زجرة واحدة ayagoo loo jawaabayo waxaa lagu yidhi soo celintaas waa hal qayli oo keli ah فإذا هم بالساهرة isla markiiba waxay ahaadeen dhul bannaan oo siman هل أتاك حديث موسى ma ku yimaaday nabi maxmedow muuse warkiisa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى waqti uu u dhawaaqay rabbigiisa asigoo ku sugan togii muqadaska ahaa ee tuwa la odhan jiray اذهب إلى فرعون إنه طغى markaasaa waxaa lagu yidhi muuse tag oo fircoon u tag waa mid qooqay فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى waxaadna ku tidhaahdaa fircoon war fircoon oo ma kuu sugnaaday inaad isdahirto oo markaas aan kugu hanuuniy rabbigaa subxaanahu wa tacaala xaggiisa aadna cabsato فأراه الآية الكبرى wuxuu tusay muuse fircoon aayadda ugu weyneed فكذب وعصى markaasuu beeniyey aayadda wuuna caasiyey ثم أدبر يسعى intaas kadib wuu dhabar jeediyey asigoo degdegaayo فحشر فنادى wuxuuna soo kulmiyey golihiisa فقال أنا ربكم الأعلى markaasaa wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay rabbigiina ugu sarreeyey فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku qabtay fircoon midda dambe cuquubadeeda iyo midda hore إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
arrinkaas dhexdiisana waxaa cibro qaadasho ugu sugnaatay qofkii Alle ka baqaayo. أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها idinku miyaa adeeg badan xagga abuurka mise samada Allah subhanahu wa ta'ala wuu dhisay samada رفع سمكها فسواها wuxuuna kor yeelay samada qaradeeda wuuna simay وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu madoobeeyay samada habeenkeeda wuxuuna soo saaray barqinkeeda والأرض بعد ذلك دحاها intaas kadib Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu fidiyay ardada أخرج منها ماءها ومرعاها Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu soo saaray ardada biyaheeda iyo daaqeeda والجبال أرساها Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu qotomiyay buuraha متاعا لكم ولأنعامكم arrinkaasna wuxuu u yeelay Allah subhanahu wa ta'ala raaxeen idinka idin raaxaynayo iyo xoolihiinaba فإذا جاءت الطامة الكبرى markay timaado musiibadii ugu weyneed يوم يتذكر الإنسان ما سعى maalinkaas ayuu xasuusanayaa insaanka wuxuu shaqaystay وبرزت الجحيم لمن يرى maalinkaas waxaa la muujiyay jahannama qofkii arkaayo فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى qofkii qooqa oo doorta noloshan dhow ee adduunka ah kaas jaxiim waxay u ahaatay hooyaadkiisa وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى qofkii ka baqa ishor istaaga rabbigiisa subhanahu wa ta'ala naftana ka reebo waxyaalaha ay jeceshahay kaas jannada waxay u ahaatay hooyaadkiisa يسألونك عن الساعة أيان مرساها waxay ku weydiinayaan nabi maxmedow saacada qiyaama xaggeeda goormuu ahaaday dhicitaankeeda فيما أنت من ذكراها adigu maxay baa dhexdiisa ahaatay sheegideeda إلى ربك منتهاها rabbiga subhanahu wa ta'ala xaggiisa ayuu ahaaday dhammaadkeeda إنما أنت منذر من يخشاها adigu waxaa tahay nabi maxmedow mid u digaayo mid qiyaamada ka baqaayo كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها waxaad moodaa maalinka ay arki doonaan qiyaamaha inaysan ku nagaanin adduunkan ilaa galab mooye ama barqankii بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku bilaabayaa Allah magaciisa kaasoo naxariista guud iyo naxariista gaarka ah عبس وتولى أن جاءه الأعمى wuu wajitubay oo wuu jeedsaday inuu u yimaaday darteed kii indhoolka ahaa وما يدريك لعله يزكى maxaa ku ogeysay nabi maxmedow inuu mudan yahay indhoolkan inuu isdaahiriyo أو يذكر فتنفعه الذكرى ama uu waantoobo oo markaas ay anfacdo waanada أما من استغنى فأنت له تصدى ama ruuxii ka deeqtoomay xaqa adigu miyaad u banbixaysaa asigu وما عليك ألا يزكى ayadoo korkaada aan ahayn inuu isdaahirin وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى ama ruuxii kuu yimaado asigoo degdegaayo weliba rabbigiisa subxaanahu wa tacaala ka baqaayo adigu miyaad ka mashquulaysaa xaggiisa كلا إنها تذكرة
وركتشوغي قرآن كان واواني فمن شاء ذكره قفكي دونو وكوان توبايا قرآنك في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة wuxuu dhax ahaaday quraanka waraaqado oo la maamuusay kuwaas oo la koryeelay haddana la nadiifiyay biaydi safara kiramin barara malaa'ik safiira ah gacantooda ayuu ku sugnaaday malaa'iktaas oo wanaagsan oo haddana baariyaal ah qutila al-insanu ma akthara wala nacladay insaanka maxaa gaalnimo ku xambaaray min ayyi shay'in khalaqah sheegay baa xaqiisa oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ka abuuray insaanka min nutfatin khalaqahu faqaddara wuxuu ka abuuray Allah subhanahu wa ta'ala insaanka biyo yar xaqooda markaas ayuu qadaray thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu fa aqbara intaas kadib wuxuu u fududeeyay Allah subhanahu wa ta'ala jidka dhalitaanka intaas kadib Allah subhanahu wa ta'ala wuu dilay insaanka qabri ayuu u yeelay thumma idha sha'a anshara intaas kadib markuu doono Allah subhanahu wa ta'ala wuu soo bixinaya kalla lamma yaqdi ma amara haka joogay insaanka wuxuu amray rabbigi subhanahu wa ta'ala muusan gudunin falyanzur al-insanu ila ta'amihi hafiiriyo insaanka cunadiisa xageeda anna sababna al-ma'a sabba anaga ayaa shubnay biyaha shubid thumma shaqaqna al-arda shaqqa intaas kadib waxaan jeexjeexnay ardada jeexjeexid faanbatna fiha habba waxaan ka soo dhalinay ardada dhaxdeeda badar wa 'inaban wa qadba iyo cinab iyo laamo curdan ah wa zaytunan wa nakhla iyo zaytuun iyo geedo timir ah wa hadaa'iqa ghulba iyo beero waaweyn oo laamahooda isku tagay wa faakihatan wa abba waxaan soo dhalinay qudaar iyo daaq mataa'an lakum wa li'an'aamikum waxaan u yeelnay arrinkaas raaxeen liidin raaxaynay idinka iyo xoolihiina فإذا جاءت الصاخة markay timaado tii qaylada badneed يوم يفر المرء من أخيه maalin ayaa imaan doonta oo qofku uu ka carari doono walaalkiisa وأمه وأبيه hooyadiisa iyo aabihiisa وصاحبته وبنيه xaaskiisa iyo wiilashiisa لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه maalinkaas qof walba waxaa u sugnaaday arrinkaas oo deeqo وجوه يومئذ مسفرة wajiyaal maalinkaas waa mid ay iftiimayso ضاحكة مستبشرة oo qoslayso haddana bishaaraysanayso ووجوه يومئذ عليها غبرة wajiyaal maalinkaas waxaa ahaaday boor ترهقها قترة waxaana daboolayo mugdi أولئك هم الكفرة الفجرة kuwaas waa kuwa ku gaaloobay xaqa oo dembiilayaal ah